السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال هذا داوديال وحمل مهن بره بالشدة هستي دمر أويه نوع يدوني وهكذا هذا ماموين حبلا يرجر ومتقنا اللي الدلي أيه بره بالشدة هستي بلين كهرين مامدن بليلة دقيست قبديجا أنيسو أمينو عاشو سميرة أيو معانا يا الفيديو وانتو فيديو والله سوشيال ميديا يا لقى صارن الله شرقري فيديو وانا بين ويحيرويا ويلمية دشويدويا ويوالنتو يدويا أبين جالو يجينويا مركا ويناتين وإلهي إذن كوريا إيلو بنينو homeless aan noqonino isku tashta walaalkiin caawiya naago guursanaa walaalkiin caawiyo walaalkiin anigani caawiyo haddii jeelkaan ka soo baxo haddee runtii maamadan waa maamo weyn waa hooyo weyn ma ahan gabadh yar waxaan filayaa qof fiidiyogan arkay oo fiidiyogan daawaday fiidiyogan dhageystay oon indhihiisa ilal isku soo taagin inuu jirin baan filayaa waa hooyo weyn waa hooyo Soomaaliyeed qurbaha ayay joogtaa sida aan xogta ku maqlay ninkeedii ay kala tageen ayaa gaar ku soo diray iyo boolis carruurtii baa laga qaatay ayadana waan ku xidhayaa buu yiri waxa weeyaan waa hooyo weyn ma ahan gabadh yar hadday tahay iyo qofka hadduu hooyo weyn ay tahay inkastoo isku mid yihiin dee hooyo wada yihiin gabadh ay hooyo tahay dhammaanteed bay hooyo wada yihiin haddana maamadan ma aha ilmo ciyaala qof weyn weeye hadalkeeda markaad dhegaysato xataa haddii qof waalan sidan ma dhaho qof waalan sidan uma hadlo ciyaalkeedii sidan ulamaysa dardaarmeen hadday mataqaanaa waalan tahay sidan ulamaysa hadasheen waxa weeyaan qof dee damiirkiisu uu damqanayo ama jirkiisu dee uu dareemayo hooyo waxay tahay dee waxaan kuma soo dhaqmeen qof hooyo ay soo korisay hooyo ay naas soo nuujisay hooyo ay soo xambaartay war hooyo maysan ahayn midaan caloosha 9 bilood nagu waday maysan ahayn midii naaskanu soo nuujisay maysan ahayn midii dhabarkeeda aan ku soo xaari jiray maysan ahayn midii dhabteeda ku soo xaari jiray intee qof hooyo dee damiirkeeda iyo hooyo waxay mudan tahay garanaya hooyo horta kama oohiyo bal aynu ku socono fiidiyowga si yar dhageysano qadka aan ka baxo noloshayda ay u dhamaatan hooyo iscaawiyo garab isisiiya hooyo waa dardaaran fiidiyowga gabdhahayga ku socdaa u sheer gareeya gabdhahayga u sheer gareeya way yar yihiin u sheer gareeya markaa weynaatiin hooyo markaa weynaatiin isku tashta hooyo isku tashta walaalkiina caawiya naagta u guursadana ka taga markuu weynaado markaa weynaatiin ka taga haddii dadkaa la joogtiin isku tashta meel dega hooyo shaqaysta hooyo homeless ha noqonina hooyo garab isisiiya hooyo waa waanadayda qaad wallaahi waa qalbi xanuun weeye iyo oohin iyo muraar dilaac weeye qofkii fiidiyowgan daawada oohin iyo qalbi xanuun iyo muraar dilaac ayuu fiidiyowgan ka qaadayaa warragow dumarka sidana laga daayo war dumarka sidan yaan loola dhaqmin war hooyo sidan yaan loola dhaqmin war hooyo waa tiina dhashay war damiirkii noolaa awey kolley waxay ila tahay qof maskaxdiisa iyo magiciisa iyo mataqaanaa imirkiisa ay taam yihiin hooyo oo hooyo garanaya waxay gasho iyo waxay guddo waxay ila tahay inuusan hooyo uusan ka oohiyan bay ila tahay waa maangaab liita weeye qof hooyo ka oohiya qof hooyo dhibay maangaab liita weeye maamadan hadda bal waxay ku hadlaysaa dhageysta maamadan bal oohinteeda intay la egtahay da'da joogtay ee ooyisa bal fiiriya war miyaan hooyo dhalin midkan sidan u galaya war maysan bal da'day joogto ee ciyaal dhashay ee ciyaalkeedii bal xilligu waqtigu kuga oohinaya fiiri waqtigan oo kale waqtigii la xanaaneyn jiray ee la ilaalin jiray war damiirkii awey war ragoo dumarka sidan ha laga daayo war oohinta dumarku wayna dhibaysaa inaga war dhaqan Soomaaliyeed ma aha oo diin ma aha sidani war dumarka sidan laga daayo hooyo qaata waanadayda gabdhahayga afartiina isku tashta hooyo garab isku noqda hooyo waa la xaasida hooyo magaalada liiga xaasiday hooyo garab isisiiya hooyo iscaawiya hooyo hadda homeless noqda
الله هوي الله هوي way ooyeysaa waa la xidhayaa bay leedahay xabsi baa la ii wadaa bay leedahay waxay la dardaarmaysaa ciyaalkii bal fiiri ciyaalkii bay la dardaarmaysaa hooyo hebel wuu guursanayaa hebel caawiya bay leedahay wuu aroosayaaye hooyo hebel caawiya hooyo ha iloowin aniga hooyo idinkuna is caawiya ma qof hooyo garanaya hooyo waxay tahay qof garanaya hooyo kama ohiyo runtii waxaa baraha bulshada kusoo badanaya dumarka ooyaya dumarka la dilayo dumarka nooca xun loola dhaqmayo waxaas dhaqan ma aha war meel xun baynu ku soconay halkaynu ku soconno waa halkee talow maxaa soo socda marka hooyooyinkan sidan loola dhaqmayo hooyooyinka sidan la yeelaya maxaa soo socda talow waa ku xigi doona haddana war ragow dumarka sidan ha laga daayo war hooyo waxaan inagama mudna war hooyo waxayna la sumartay hooyo abaalkeeda iyo xaqeeda toona ma gudi karro haddaynu adduunka wax yeelo dhan aynu isku darro ma gudi karro walla inaan ka gudi karin macal kala badh inaan gudi karin war sidan ha laga daayo niman yaho dumarka hooyadan wax qof qalbigiisu iyo maskaxdiisa iyo mataqaanaa dareenkiisa iyo dabiirkiisu ay taam yihiin oo hooyadan dhageystay oon ooyeyni wallaahi ma jiro muxuu yahay marka ka oohinaya damiirkiisu muxuu yahay isaga damiirkiisu waasee damiirkii miyaa ka dhintay miyaan isaga hooya dhalin talow miyaysan hooya dhalin isaga miyuusan qof jira ahayn ciyaalkiisan iyo gabdhahan ay dhashay iyaga muxuu la damacsan yahay muxuu ka rabaa maxay noqon doonaan hooyadood marka sidan looga oohinayo oo ciyaalkii iyo gabdhihii hooyadood sidan looga oohinayo gabdhahaas hadhow muxuu ka rabaa isagu maxay noqon doonaan walaalkiin garab u ahaada hadduu ilmo kala dhalo hooyadiis adigiis dugsado hooyo adigiis caawiya way xiray waa waalantou leeyahay waa ilmihii dishow leeyahay fiideo maxkamaduu soo dirooyaa hooyo andagow igula dagaashanaay hooyo dagomo igula dagaashanaay hooyo wuxuu igula dagaalama garanayo isku tashto hooyo ilmahayga fiideogana loo sheer gareeyo been ma sheegay waa lay xirooya aniga been ma sheegay faaduma ibraahimey abarta sacdiyey fartuuney ilaahay hortiisa ku xisaabtameena maalinta qiyaama xisaabtameena maxamed inta inka badan lama dhageysan karo fiideoga wallaahi billaahi tallahi lama dhageysan karo qof damiirkiisu iyo maskaxdiisu ay taam tahay oo hooyo garanaya waxay gashay iyo waxay guddo fiideogan ma dhageysan karo runtii waxay la tahay damiirkii baa dhintay waxaa dhintay qofkan kolley ninkan isaga sidan yeelayo hooyo ka oohinayo hooyadan sidan u gelaya maamadan intan leeg gabadh yar hadday gabadh yar tahay waxyaabo fara badan baynu maamadan weyn iyo gabdhaha yar hadda waxbay ku kala duwan yihiin waxyaabay samaysay aaladahan macnaha miidiyaha dhaqan xumada waxyaabahan baanu kusoo qaadi lahayn gabdhahan ku sheegi lahayn laakiin maamadani waa maamo weyn ciyaalkeedii baa guursanaya wiilkeedii baa guursanaya ay kala dardaarmaysaa hadda ay gabdhaha leedahay hooyo caawiya hebel wuu guursanayaay hablaheedii bay la hadlaysaa ay leedahay hooyo idinku is caawiya aniga ha iloowina hooyo waa maamo weyn madda lagaga oohiyo joogtaa madda lagaga oohiyo ayay joogtaa maamadani war hooyooyinka sida ha laga daayo war sida ha laga daayo hooyooyinka war hooyooyinka sida ha laga daayo ragow dumarka sida ha laga daayo dumarka oohintooda wayna dhibaysaa wallaahi billaahi tallaahi wayna dhibaysaa markaan arko qof dumar oo ooyaya aan social media ku arko qalbiga ay xanuuna maskaxda ay xanuunta wallaahi dareenka ay xanuuna wallaahi ilin baa indhahayga isku soo taagta war dumarka sidan loola dhaqmayo ha laga daayo ragow dumarka sidan loola dhaqmayo ha laga daayo oo hooyooyinka laga oohinayo ha laga daayo oo dhaqan baynu hayna dhaqankeena ha la ilaaliyo war dhaqankeena ha la ilaaliyo sharafteena ha la ilaaliyo dumarka oohintooda naga daaya nimayo dumarka oohintooda naga daaye hooyadan waa hooyo weyn waa maamo weyn aniga way dhali kartaa hooyada bay la eg tahay madda lagu oohiyi joogtaa maanta madda ay waxaas ku hadashay joogtaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaynu ka hadli doonaa oo kale oonu soo gelin doonaa habla iyagana nooc xun loola dhaqmay oo mataqaanaa si arxan darra loo dilay oo iyagana wejiga iyo indhaha iyo keliyahaba laga garaacay oo sankam ka dhiigaya ayaanu iyagana soo gudbin doonaa aynu aad iyo aad baad u mahadsantihiin wada socod wanaagsan